shinkii aad qiyaamaha ku lahayd ogow waxa aad lumisay mansiladii iyo qurbadii iyo u dhawaanshihii aad ilaahtiisa ugu dhawaad waad lumisay ogow. arrintan haddaba aan ka sheekayna waa xalaashii. yaa allah yaa allah, waxa aynu ka sheekayna waa xalaashii, waa lamaanihiis qabi xalaashii ugu ahaa. famaa baalu zunnaat, haddaba ka warraba kuwa ziraysta ee zinada ka sheekeeya. yaa ilaaha alcaalamiin, kuwa intay baadhiyada tagaan xafladaha tagaan soo tuntaan ma og tahay qofka ugu liita qiyaamaha, qofka ugu liita miyaa taqaanaa? sida uu warinayo imaam muslim saxiixiisa min xadiidi abi saciid alkhudriy radia allahu tacaala canhu ardah. abi saciid waxau leeyahay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ina asharu nnaasi manzilatan cinda allahi yowma alqiyaamah, qofka ugu shar badan, mansilada ugu sharta badan ee ugu hooseysa ee ugu liidata yowma alqiyama miyaa taqaanaan? ma kuu sheega caawa mansilada ugu hooseysa qiyaamaha ee ugu xun ee ugu liita ma taqaanaa? nebiga ayaa kuu sheegay calayhi salaatu wasalaam. nebigu waxa uu yidhi, alrajulu yufdii ilaa imra'atihi, waa ninka markuu xaaskiisa nolosha la qaato ama xaaska markay nolosha ninkeeda la qadato, thumma yanshuru sirahaa. laba lamaana oo guri wada jooga, ninkiibaa xaaskiisa la sheekaysanaya, xaaskiisii buu ma artay la istimtaacaya, guriguu la soo gelaya, xalaashi iyo noloshii macaaneyd iyo qubladii iyo mataqaanaaye iyo isdhex maraya. kadibna waxa weeyaan banaanka intuu usoo baxo ayuu waxa uu leeyahay, ma taqaanaa gabadha aan qabo? waaw, ma taqaanaa? maasha allah, waa gabar nooca ee noocaasa, waa gabar saasa dhex yaroo noocan oo xubno noocaasa loo cajiiba oo cajiib. wixii ayuu marka sheekaynayaa, sariirta wixii ka dhacay iyo jacaylkii dhex maray iyo hanihanidii socotay iyo alaabihii la qarinayay iyo sirsirtii iyo macmacaankii iyo laaflaafkii ayuu banaanka soo dhigaya. ninka asaga ah waa ninka ugu liita manzilo cinda allahi yowma alqiyaama, asharu nnaasi manzilatan cinda allahi yowma alqiyaama. wakadalika almar'a, gabadha intay gabdhaha shiriso isku timaado tiraahda ninkaygu ma aragtaye sidaasuu u yaalaa, ninkaygu waxaasuu igu sameeyaa, sidaasuu i yeelaa, sidaasuu ila seexdaa. gabadha iyadoo ninkeeda ka sheekaysa, gabadhaasna waa gabadha ugu liidata manzila cinda allahi yowma alqiyaama. nadro xun bay qoftaas istaahishaa, qiimo ilaahay agtiisa kama laha. waxaadna ogaataa haddaad ilaahay agtiisa ka qiimo dhacdo, annaga agtanada qiimo kama lihid. liannu annagu waxaan kugu qiimaynayna waan kugu jecelnahay waa xub ullah subxaanahu wa tacaala, waa amrullahi subxaanahu wa tacaala, waa sidaad amarka ilaahay u qaadanayso, waa sida aad nebiga ugu dayanaysa calayhi salaatu wasalaam. marba haddaabad afcaasha iyo filmaanta noocaasa aad bulshada kula dhex kacdo, waxaad ogaataa in aad ku ciyaarta aakhiradaadii. adigu waxaad is leedahay waa reemagaalnimo, waxaad is leedahay ninka ku qaba ka sheekee, gabdhaha kale oga sheekee, waa nin noocaasa, waa nin khoor dheer, habeenkii markuu u yimaado nalkuu dansidaa, saasaan samaynaa, halkaasaan seexanaa, sariirta qaaqacaas. marka waxa aad ka sheekaynayso, ogow waxaad lumisay positionkii aad qiyaamaha ku lahayd, ogow waxa aad lumisay mansiladii iyo qurbadii iyo u dhawaanshihii aad ilaahtiisa ugu dhawaad waad lumisay ogow. arrintan haddaba aan ka sheekayna waa xalaashii. yaa allah yaa allah, waxa aynu ka sheekayna waa xalaashii, waa lamaanihiis qabi xalaashii ugu ahaa. famaa baalu zunnaat, haddaba ka warraba kuwa ziraysta ee zinada ka sheekeeya. yaa ilaaha alcaalamiin, kuwa intay baadhiyada tagaan xafladaha tagaan soo tuntaan kadibna dadka uga sheekeeya, bal kuwa ka waran. kuwa marfishyada taga, kuwa kilaabyada taga ee markay soo noqdaan dhaha, waxaasaan sameeyey, ninkaasaan la seexday, ninkaasaan hadda kahor ila seexday, gabadhaasaan la seexday, xumaanta kuwaa faafiya ka warrama. kuwaasi waxa weeyaan yaa allah, dadkii xalaasha isku ahaa ayay mansiladoodu halkaas tagtaye, kuwan xaaraanta ku dhacay dembigii zinada iyo xumaanta iyo dembigii dadka ay ugu sheegeen. allahu akbar, walaalkaya qiimaha badan, walaashayda sharafta badan, ka fogow inaad kuwa noqoto, ka fogow hadday macsiya kaa dhacdo, hadday macsiya kaa dhacdo inaad macsiyada aad ku faanta, ka fogow. ma ogid in laguu qaban doono, ma ogid inta laguu soo jiro. ilaah subxana wa tacaala wuxuu yidhi, ina akhdahu aliimun shadiid. wallahi qabashada ilahay way daran tahay, wallahi uma wallahi qabashada ilaahay way daran tahay. adoon ogeyn baa lagugu soo boodayaa, ma ogid cudurka kugu dhex jira, ma ogid markaad dhimanayso, ma ogid markaad adduunyada ka tegayso. walaashayda qiimaha badan, tub ila allah subxaanahu wa tacaala, ilaahay u towbadkeen qabla fawaati alaawaan. maalowta gabar baa isoo wacday wadamada yurub ku degan, waxay tiri waxaan ahaa gabar
runtii fisqiga iyo xumaanta caan ku ah anigoo 16 jir ah ayaa waxay tiri yaa ma aragtay shaydaan idubsaday tiri muddaan ku dhex jiray bay tiri waxay tiri maalmaha kamid ayaa waxaan daawaday tiri ducaada meelaha maqtacyada ay soo galiyaan clip yar waxaan daawaday tawbada iyo ilaahay looga shaqeynay subxaanahu wa ta'ala gabadhaas waxay tiri automatic nolosheedii waan bedelay gabadhaas waxay tiri min yawmi aan maqaaticda iyo khayrka aan maqlay wallahi hatta qiyamul layl igama tagin bay tiri qiyamul layl igama tagin bay tiri quraanki ba dib u muraajiciyay nolosheedii ba dib bor oga jafay allahu akbar waxay tiri waxaan dareemay nolosheeda ugu macaan baan galay waxaan u malayn jiray fisqiga iyo xumaanta fujuurka iyo qaawalaanta iyo mataqaanaaye caariyadnimadu inay tahay model in ay tahay ma aragtay style inay tahay ilbaxnimo laakiin waxaan ogaaday ilbaxnimada iyo quruxda iyo inuu yahay markaad ilaahay u dhaato subxaanahu wa ta'ala walaashayda qiimaha badan walaalkayga sharafta badan miyaadan doonaynin manzilooyinka qiimaha badan inaad gaadho Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ardaah maalin nin baa u yimid sida uu waranayo yani al-imam al-hafiz al-hajar al-asqalani oo kulli kitaabkiisa al-isaba waxa uu leeyahay nin baa u yimid kaasoo ku riyaa ya Anasow beerihii baa naga qallay biyo la'aan baa nahaysa markaasaa wuxuu yiri biyo yar ii keena markaasuu weysaystay markaasuu laba ragcadood tukaday waa Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ardaah waxa weeyaan khadim rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam laba ragcadood buu tukaday buu yiri markaasaa markiiba roob iyo gugac iyo waxa isqabsaday hanqad waxa isqabsaday buu markiiba inay dhibicda nagu bilaabato buu yiri منزلة ما أنت لقى رب حويا تربيتي وتربية النبي وأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين أنا قادته الله برك عضود يدعون أو حكوها شو ما وحى لو قلت لك ما وحد ليس إن معناها قيمة اللي هذا إن هوس العضو ولكن كرو سوكع ونن صلاة حقوق قادن كري النقو وقف دعوي بحقوق قادن كري النقو وقف إلهي ولو النقو أنس بن مالك مركو قعنت كرو قادن ويريا الله أوتو كذي مركب الرب اسقف صدر ما أنت أذو العذر كقول دعي ما أنت أذى شرعي ويدي ما أنت أديك أمني أدويدي ما أنت أديك الشقاء أدويدي وحكو كان صلى الله على قدر إلى الله سبحانه وتعالى ورهدو إلهي وحكو حلن وايو ما بني آدم وحكو حلن إياه ما إسلامته بحكو حلن يسا ما الدولة بحكو حلن يسا ما مال بحكو حلن يسا ما فيسك بحكو حلن نو والله يكون حلن وحلي والله سبحانه وتعالى القاضي الحاجات هو الله سبحانه وتعالى عدة حوائج هذا يدنا هذا كوف لنكرت الله سبحانه وتعالى عدك عاون كرت الله سبحانه وتعالى عندك قرب استايكرت الله سبحانه وتعالى عدة مركز عسكتو أنكاه سبحين والله سبحانه وتعالى عدة منزلات الرسين سوى الله سبحانه وتعالى إلهي السقى اسكال آخر يا دومبا وإن لنا للآخرة والأولى أدون كان أركيسو قال ملها أدون كان تشاينيس ملها أمريكان ملها أدون كان أفريكان ملها يوروبيان يونان ملها أدون كان الله بأسكال سبحانه وتعالى أدون كان الله بأسكال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلهي أذوك وترك سبحانه وتعالى أذوك وسخري وددي أتكفى إذا صلى الراع وعلم نافع برو وعلم الشرع برو وإله سبحانه وتعالى قفك وحا واجب كؤا معرفة العبد ربه معرفة العبد دينه قفك إنه ربك سبرته قفك إنه دينتي سبرته قفك إنه نبيك سبرته والإله بر سبحانه وتعالى والوقت قال إلهي كبر الله أسماء سي صفات كيسا والوقت قلي ساد كبر الله هيد سنة صحيحة والوقت قلي ساد كبر الله هيد دين هذا ساد قولي ستأدونك يا آخر بارك الله فيك والكي حياك الله وبياك إله سبحانه وتعالى هنقدقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فافي مقطعا قف والبؤ قارو أو توبت كان أو خير كاقادة أذغنا الصفحة هذا يكون جرتها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته